waxaan ka socdaa telefishinka codka bariga Afrika shalay talo xalan saxiyay 6 xubnood oo kamid ah komishanka cusub ee doorashooyinka xisbiga wadani iyo xisbiga cudbo ay qaadaceen ma laga yaabaa xukuumaddu tallaabo kasta oo qaadayso inay ku adkaysanayso in ay meel mariso go'aankeeda bulshadii aad ka tirsanayd isla markaasna ku taageerto waxay sugaysaa go'aanka aad ka qaadan doontaan taladaasi sidoo kale ma laga yaabaa inaad u qaadato sidii doorashooyinkii madaxweynaha xubnihii sagaalka ahayd toddobadaad qaadateen iyo sidoo kale tallaabadan shalay dhacday inaad sidii kuwii kaloo kale aad u qaadataan maadaama xukuumaddu idinkaga adkaatay tallaabooyinkaasi xukuumaddu waxba kuma adkaano horta waxay qaadatay inaan la garanaynba waan ka jawaabay xisbigu si aan ka noqosho lahayn ayuu u go'aamiyey inaanu kana mid noqon lana shaqayn waxaan idiin sheegayaana go'aankaasi waa go'aanka dambaysa xisbigu qaatay gudoomiye magacayga waa Luqmaan Maxamed waxaan ka socdaa telefishinka bulsho sidoo kale go'aanka xisbigu qaatay waa kama dambaysa inaanu lana shaqaynin kana mid noqonin gudoomiye magacayga waa Luqmaan Maxamed ka socda telefishinka bulsho adigu hore waxaad ahayd gudoomiyaha qalka baarlamaanka Soomaaliya bal shacbiga Soomaaliland ku dhageysanaya uu sheeg sharciga ku fasaxayo xubinaad gudbisay inaad dib loo soo noqoto sidoo kale xisbiga kulmiye wuxuu sheegay inuu doorashada qabanay 6 xubnood u qabanayso ma ka qayb galaysaa doorashada 6 xubnood qabanaya wada sharciga ii diidayana la soo noqdaa ay sheegi doona hadaad garanayso hadaad adigu garanayso ii sheeg sharciga ii diidayana xubinta la soo laakiin adaa ku weydiiyay hadduu jiro gudoomiye أنا أنا كويدي لبا حسبي كلمية لما حسبيه كم مقال هدول لي دورشة قمرية مقعنا كبدلو دموس اللي أنا وضحية مركز gudoomiye magacaygu waa Saki Ibrahim telefishinka dalka TV ma ka socdaa marar badan oo intii labadii sano ah xisbiga mucaaradka ee wadani kalsoonida komishankana waa kala noqonayay waxa weeye shirna waa ku dhawaaqay xasaahatee wax habeeraatee oo tallaabo oo hore u qaadeen ma jirto hadda waxa leedihiin waa talidgaga adkaaday cad ahayn golihii wakiiladana aad leedihiin waa la aftoobay marka imika shirkaaga laga dareero maxaa tallaabo la qaadi doonaa ma mudaharaad baa dalka ka dhici doona maxaa doonaysaa inaad qabataan horta tallaabo kastoo sharcigu ogol yahay dastuurku wuxuu ogol yahay mudaharaad salmiga ogol yahay ra'yiga dadku waxay ku dhiiban karaan qoraal waxay ku dhiiban karaan hadal waxay ku dhiiban karaan shirar intaba waa noo bannaanta xisbiga inuu qaado gudoomiye magacaygu waa Idris Bershiya waxa ka socda telefishinka Universal sida in hadalkaaga ka dhawaajisay waxa tiri labada xisbi kuma wada jiraan guddiga komishanka ee shalay tole ay saxiyeen golaha wakiilada sida muuqatana xubnihii ay soo xusheen xisbiga wixii way joogeen goobta waxaana ka mid ahayn kuwa la saxiyay arrintaasi see noqonaysa horta taa kamid noqoshada xubintooda u cidbad weydiiyey laakiin go'aankii shalay labada xisbi wada qaateen waxay qaateen inaanay la shaqaynin qolada la yidhi waa la asxiyey mar hadday dhinaca ku jiraan dhinacana waxba go'aanka xisbigaale komishanku wuxuu u shaqeeyaa axsaabta hal xisbi uma shaqeeyo marka hadday laba xisbi ka maqan yihiin waxay la tahay maxamed kaahin iyo muuse bixi qabanayaan doorashada soo dhow انت لو سنه كله بتكلم كمان لا كي وقت يسوي ما هذا السنه كله بتكلم سنين كي اسبانها تمساق قاعده تلاابد موقف كيلو marka geema deena qaada aysan koorto wadaan weeyaan waa maxay talaabada saxda cad ee qaadaysan laakiin soo ma qorsheyn aad ku doorshay maya waxa Soomaaliya xaal hab maal cad baa la gashaa saddex xisbi waxay ku heshiiyeen in komishankii hore la bedelo madaxweynuhuna maanta saxayay waana ag joogteeno waana dul taagnayd horta heshiiska hadda madaxweynaha ka baxay muuse ka baxay manuu waayin qof aan komishankii hore ka mid ahayn xubin ka midana hadda xisbigiisa ka mid ahay oo annaga sanadkii hore komishankii ka horreeyey doctor fadel baana lagu soo celiyey xisbigu ka mid yahay فضل لو ما يريني إني غير كيس كيمي لكن هذا واحد وضعني بعد كتر سنة عبد الرشيد ده شخصيا الله ما هيست
waxaa loo haystaa lagu cad yahay oo intaasoo kilib aa haysaan 100 kilib baa ku jira maanta social media marka go-aanka xisbiyadu waxa weeye in commission dhexdhexaada la helo markaas umar doorashada ka mid noqon gudoomiye waad mahadsan tahay magacaygu waa Betri Koosar waxaan ka socdaa telefishinka Sahan khaladaadka dawladdu gasho marka dad badan oo dawladaha aqoon leh ay ka hadlayaan waxay yiraahdaan khaladaadka badan ee dhacay waxaan jirin mucaarad adag oo arrintaasi ka falceliya mucaaradadaadu inaanay adkayn ma isku aragtaa maya لكالنتي معارض كموسى قال معارض مقضي ما كان ضرب له معارض مقاضي كانوا قدنا سنت waxaan ka socdaa telefishinka Kooriya shirka ka jira idii hadda yakii ku horeeyay maalin hore aad qabatay waxaan ku soo celisaa Muuse waxa ka maqan ereyga madaxweyne bulshadu waxay isweydiinaysaa gudoomiye Cabdiraxmaan Ramayaan oo aqoonsan Muuse bixin yahay madaxweynaha Soomaaliland see wax kala jira Muuse de warigi beriga aqoonsaday ya marka ma khadam wasiga baana malayn hay muddo dheer waxay ahaan jirtay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliya xeerar badan oo shacabku si ay u arkayeen waa idin dhaafay tan u dambeysay waad ka maqan tahay waxa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan weli xubintaadi way ka maqan tahay waa la laaban hadalkaagana waxa ku jirta golaha wakiilada wuxuu noqday sayidadaasi ay dadku isweydiinayaan wasiirada dadka loo kala iibsadaa wasiirada xoolaha loo kala iibsadaa dadka waa cadeen sayidadaas إنك برنامج كذا سامين دون سيرين ده سيرين بدون ما يعرف خلاص أنا حسيت فيش كذا أصلا من كم نقدر هذا برلمان كل شيء مشكلة حسبية كها حسبية الوضع ما هاد سؤال يعني حسبية من كم نقدر هذا برلمان واحد شيء مشكلة كنا حسبية كها حسبية سبية كور شيء يعني قامرة ما تقدر سويت شيء هذا سكر حلوة صاحبتها هذا أنا مو هذا دكتور أيه gudoomiye magacay waa sagal waxaan ku weydiinayaa waxa jirta mudooyinka u dambeeyay saraakiisha xisbiga adigu aad ka mid tahay xogayaha guud ka mid yihiin waxay ku dhawaaqayeen inay samayn doonaan wax kasta oo ay ku toosinayaan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi way ku jirtaa hataa inay gabadbaxyo qabanaysaa haddiiba ay gabadbaxyadaas u dhacaan ama kacdoonnadaasi ay dhacaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa yaa qaadaya waxaa qaadaya ciddii caburinta keentay